marka maxay taraysaa ictiraafku waa labo maanta bise beritole maanta waxba tarayo qasdana dagaalka ma joojinayo difadana furfurka la furay ma joojinayo israa'iilna ma la joojin karo laakiin waxay noqonaysaa dhibic u biirtay falastiiniinta macrakada istiraatiijiga ku jira falastiiniintu oo ah inay dheelan doonto dowlad la yidhaahdo falastiin marka dowladuna waxay sii helaysaa ictiraaf dowladu badi waxay ictiraafka helaan markay xoroobaan laakiin falastiintu iyagoo xoroobin bay ictiraafkii sii helayaanba marka waa usoo biiraysaa khaasatan waxay ictiraafayaan waa dowladihii abuuray israa'iil oo ingiriis baa ka mid ah saxiix australiana ingiriis ka mid ahay markii la abuurayo waa saaxiib anglo-saxonki weyaan kanadana waa saas waa dowladii taajka ku jiray taaj britania waxaa ictiraafaya waa faransiiskii oo ah dowladdii nuclearka u samaysay israa'iil nuclearka faransiiskaa sameeyey israa'iil maraykan buu gurigi doonay waxa lagu dilay John Kennedy la socda John Kennedy miftaaxa ay keenay buu maaratay meesha lagu sameeyo halis buu markaa waxa imika la soo furayaa falkiisi filada wala isku haystaa lianno wuxuu faragaliyay bay ahayd arintaas waxa uu sameeyay nuclearka waxa waa faransiiska waa dowladda faransiiska ee samaysay waxa la waan ictiraafayna dowladda Falastiin waxa ictiraafaya Spain maanta Spain iyadoo ictiraaf way dhaftay waxay ka goysay cunaqabataynta hub billion euro ah iyo joojisay waxay weliba iminka shaaca ka qaaday inay markab dagaal raacinayso dadka doonaya inay furaan badda ay furaan Gaza saaka soo saartay markab dagaal baa raaci doonayda marka arrimo waaweyn baa dunida kusoo biiraya waxaan u bixin karnaa wax weeyaan duufaankii Gaza wuxuu noqday duufaan caalami ah duufaan soo Gaza loo bixiyo duufaan aqsa isku bedelay duufaan international وعالم كودن وساوسو داي بيشن marka laakiin maaha maanta waxba ma tarayo maanta qasdi waxa kama qabanayo laakiin waa point waa dhibic usoo beertay shacabka Palestiin weeyaan 140 dowlad baa ictiraafsanay maanta waxa ictiraaftay 160 dowlad 190 dowlad baa hadhay 60 dowladood amana badna xabadar maaha aqlabiyadu ictiraaftay waliba marka la dhahdo dowladaha isticmaali kara veto-da waa 5 صحيح أفضل واحد اعترافته روس يشينه فرنسيس إنجليز هذا ما ضل وين أسوكر دولتها اللي محاودي ده هي إن أي اعتراف كفلسطين أي راعيان عمقبتين إسرائيل سعران زي أمر كودو وقاسنت أوكي صدق حرم موجود دي لما وان مريكان بانوغورين مريكان فيتو هايستا ما دعي كرس ونقبتين سي لو صار والا مري جمعيه قربه كلاس صحيح جمعيه قربه markay mareysana amniga fil amniga mari miis amniga waxa fadhiya Mareykan bataas oo ku weeyaan lambar laba loobiga saxi yuhuda ee caalamka jooga ya ku xoog badan hatta marta yuhuda caalamigu si uu Netanyahu u dhaqmaya wadidan yihiin waxana ninkani uu ugu diray caalamkii Netanyahu waa la beelay marka laakiin ma ogola in haddana cid qabatin la saaro dowladda Israa'iil wabiga caalamiga xataa Netanyahu soo jeeda taasina ma ogolaanayso kuwa gacanta ku hayay qabdooda anida saddexaad ee cunaqabataynta aan ogolayn wadamada carabta ku meersan iyakuna ma ogolo wala shaqeeya dowladda Israa'iil si dhow wala shaqeeya okay saddexaas markaan kala bas ma sha Allah waa garanay shaqada jazakallahu khair haddaba iyadoo cadaadiskan caalamiga ah uu socdo oo lagu saaray Israa'iil in ay gumaadka ama waxa genocide-ka hadda la yiri dadka fasalka lagu hayo la joojiyo dhanka Trump oo runtii xukuumaddiisa aad u taageersan dowladda hadda Israa'iil wuxuu isku dayaa mar walbaba in uu dadaaladaasi uu wiiqo ama hoos u dhigo haddaba hadda wuxuu sameeyay kulan inuu la yeesho wadamada madaxweynayaasha wadamada Carabta qaar ka mid ah oo ku saabsan qadiyadda Gaza marka kulankaasi muxuu daarnaa maxaa ka soo baxay horta wuxuu la fadhiistay wadanada uu doortay waxay haayeen 8 wadan 5 Carbeed iyo 3 muslimiinta kale Carabta hayna okay wuxuu ku doortayna shuruudo weeyaan dadku inay fahmaan balbaay wuxuu ku doortay kuwa Hamas uu qadku u furayay waa Turkiga ومصر وقطر
indonesia nafteeda kama fogo iyo kuwo israa'iil khadku u furan yahay oo masar imaaraadka waa urdun markaasi waa doorasho weeyaan dhinac labaad wuxuu ka doortay awoodaha waaweyn hadday yihiin dhinaca quwadda adag ee carab muslimiinta iyo hadday yihiin quwadda naacimka ah matalan wuxuu doortay awoodda turkiga indonesia wuxuu ku doortay maaragtay wadannadaasi muslimka ah bakistan wuxuu ku doortay waa bakistan wuxuu ku doortay waa xoog awoodii waaweynaa islaamka weeyaan sacuudiga iyo qatar iyo imaaraadkana wuxuu ku doortay waa awoodii lacagti iyo businesskii buu doortay marka wuxuu leeyahay kuwan kuwii ugu muhiimsanaa bariga dhexe weeyaan okay shirka markuu waxaa loo qabtay gaza uu sheegay isagu wuxuu u qabtay Trump shirka laba arrimood wuxuu dagaalka gaza in la joojiyo waa lambar 1 iyo in la soo sii daayo 40 qof ee Hamas ay gacanta ku haysto waa in sidii loo soo sii daayo shirka markuu ka soo baxayna كلمة مقهى وحول كان الاجتماع عظيما هذا اللي هو بس قلبت شركه مو وين هقول وعن كسر نابل النتائج وين مدحونها تركيا وحولي وحو أهابوري شر مروى وين لا قوسكه أيوه هقول نيك اللي راحدو تميم حكومة أمريكا قطر وحولي خلبدي سيبو كدري أد سألوا وراي لكن وحولي waxaan rajeynaynaa inuu Trump bixiyo amarkii joojinayay dagaalka wuxuu yiri Trump waxaan la hadli doonaa marka shirka ka baxay Netanyahu waxaan amrayaa inuu dagaalka joojiyo iyaan kala tashanaya okay shirka marka waxa loo qabtay waa intaas su'aashu waxa weeyaan ma dhici ya bisa ma dhacayso aniga sayla tahay laba arrimood haddii tallaabo laga qaado way dhacaysaa kow Trump ma jeclo Netanyahu taasoo waa inaan ogaano laakiin Trump Netanyahu wuxuu ka hayaa wax buu ka hayaa marka hadduu amar bixiyo uu joojinaya dagaalka sidee ku xiran tahay Trump ku xiran tahay wax ku filan Israa'iil la dhaho taageerada idinka reebay amar jooji uu joojinaysaa labo sidii markii Iran weeraraysay diyaaradii way ka kacay ugu joojiya dib u celiya marka midda koowaad waa midda weeyaan midda labaad ee dagaalka joojinaysa wax weeyaan arrimo bariga dhexe ka bilaabmay hadday si fiican u akhriyaan Israa'iiliyiintu waa joojinayaan oo ah in taxalufaad uu bilaabmay bariga dhexe la cabsaday carabtu ay cabsadeen way cabsoon shucuubtooda kuraasadooda u cabsoodeen waxa laga sameeyay cabsidaas waxay keensatay inay yiraahdaan Turkiga iyo Pakistan heshiis la galo marka taa hadday Israa'iil akhrido dagaalka joojinaysaa Hamasna mar hore bay dagaalka inay joojiso way ku qasban tahay maxaa yeelay shicibkii waa cabsoonaysaa dadkana way sii deynaysaa laakiin laba shardi baa kaga xidhan shardiga koowaad waxa weeye in dhulka laga baxo إسرائيل كبحضه شرط قال بعضنا إن عمتنا لسوتو سيدايو مركانا دولة waxay diyaar u yihiin Hamas inay ku wareejiyaan dhulka dawlad dadku ay ogol yihiin oo nahayn mid lagu qasbo hubkana ma dhigay ilaa gurmada la yiraahdo hadii hubka dhigaan dagaalkana laga ma joojinayo oo si baabi'in hubka waxa loo qaaday waa goorimo hadii goorimo jirin hubka waxa uu qaaday ma wax kale waa goorimo marka goormadu waa been noqonaysa sabab marka dagaalka mid lagu qasbay mid ay wadaan noocaas weeyaan waata hadaba waxaan u galeynaa marka umurtan istiraatiijiga ee bariga dhexe ka socda iyo taxalfaadkan hadda ka dhawaajisay waxa hadda soo socda oo dhacaya dowlatus ciidan oo u dhaxeeya dowladda Turkiga iyo Masar muxuu ka jawaabayaa dowlatuskani horta inta aan dowlatuska ka hadal barzaaqo Masar waa dowladda ugu xoog weyn bariga dhexe bacda Israa'iil iyo Iran iyo Turkiga wala isku hayaa Iran iyo Turkiga iyo Israa'iil iyo Masar keeba xoog badan marka meelka laga soo akhriyo hadiya jamid baa la horeysiyaa qasab ma marka qadka Masar baa la horeysiyaa laakiin Masar waxa loo geeyay waa dawladda 13aad ee adduunka weeyaan waa dawlad ciidan xoog la haysto weeyaan number 2 waa 120 milyan shacab midda saddexaad dawladda Masaaridu waxa weeyaan waa hoggaanka wadannada carabta oo la daciifiyay intaas waa Masar baa iska leh Turkigu waa dawlad isaguna 100 milyan ku dhow ninka dadku
ciidamada waa ciidanka labaad ee neet mooyaan maraykan buu ku xigaa waa horumarsan yihiin marka ciidan la dhahdo neet ku xigaa wuxuuna maanta socdaa 80% hubku isticmaalay isagaa samaysta taasaa ugu muhiimsan taas 80% xataa ciidamada badda 80% sidaa samaysta hubku isticmaalay isagaa samaysta waxaana la ogyahay hubab badan oo isticmaalo oo aanan wadi la ogaan la tijaabinba waxaa ka mid a qumbulad la mida nuclearka oo la jiriyo mar dhaweyto oo burburka nuclear kale laakiin nuclear aan ahayn oo awood weyn leh wax badan buu markaa ay sameeyeen labadan dowladood waxaa la oran karaa waa labada baad ee adduunka islaamka ku dooli karo heshiis inay isdowladood ka sameeyaan markaa maxaa keenay idan dagaal baa ka dhexeeyay masar isku kacsanay iyo turkiya 10 sano isku kacsanayeen oo turkiga wuxuu raacay ahayd maaragtay mursi dowladiisii wala jiray laakiin imika maxaa keenay waxaa jira masar waxaa jira dad yiraahdo ad-dawla al-camiqa oo marka ka sheekeyno xataa ka fikira marka qaarkood in la afgambiyo xitaa madaxweynaha markaa siisi marka dowladda camiqa waxay ku xoog badan tahay saddex meelood هو بنتها مخابراتها وزارة أرمها الدبدة يعيد مضى هذه الدولة العميقة وحيدة ديناميكا مصارده هاليس بيكون جرتها وحانا هاليس تقوكاني بيهين والا قبصدي قاجة صوتي هران هل كان قزال بابي قزاء داوريني لوصلنا للوحي كانتي إن أن قاونانو لابد وإن أن اسبدل أصابينو توبين اسكيلان لين وحي غزوك حد للاعي غزوك حد للاعي تركيا waa markaa loo dirtay war turkigana dawladda sadxiga dusha joogtay ma jecla masar laakiin dawladda camiiqa akhridan tanaha turkida waxay leeyihiin masar waxay dooni baa noqoto inaan la heshiino saddex sabab daraadeed waa inaan la heshiino oo la sameeyno waxay doonayso number 1 badcad oo masaaridu ay u dhowdahay إسرائيل أي دول فردو تركيا أو دول فردو وحال كجرا جاسك أدونك أبوي وأنا نقرأ دراك المستقبل كبضاعة ميديترانيا وإن مصر مارت ليبيا هي سوريا هي تركيا وإن كتاليان إسرائيل وحنا نقرأ عوام باش نقرأ لكن وحدوتها إذا كأبوي نبطها ماريسكا مراكين تأبوي مثل كميدا هذا أصلا بدأ بريك laba shayna uu ilaaliyaa wuxuu ilaaliyaa in wadamada isku yimaadiin oo kale ilaaliyaa Israa'iil oo ilaaliyaa Israa'iil wardi warduka yahay masaalixdiisa iyo masaalixdiisa xaygo Israa'iil baa ka masaalixdiisa xaygo saxiix in wadamada daciifina hadana masaalixdiisa kamid tahay okay marka turkigu taas ka fikiray istaraatiijiyada turkiga fikiray waa taa weeyaan inuu masar la heshiiyo marka taas u qaatay arinta labaad saddexaad wax weeyaan wuxuu turkigu og yahay in ay waqti dhow isku dhacayaan Israa'iil عن طريق سوريا انت اللي يسكن بعين وانه اسمى اشقال اسرائيل وانا مش بقول البابك انه سمى مركا تبركني حاجه مناوردني دولتوسكني ciidamada labada ciidan ee ugu xoog weyn kamida ciidan bariga dhexe waxay ku sameyn doonaan dhulka Turkiga iyo dhulka Masarida iyo badda Israa'iil ku sameyn doonaa waxaana ka qayb geli doona ciidanka dhulka badda iyo cirka yaa ka qayb galaya qadir garo dhameystiran marka Israa'iil waxay ku noqotay argagax arrintaana waxaa keenay khariidadan uu watuulay bariga dhexe ee ballaaran oo ugu celiyo tirtirado iyo arrintaana keentay cabsida intaa leeg keentay marka iminka haddaad dhegaysatid warbaahinta masaaridu waxa weeyaan waxay ku jirtaa markii uu dhici doono dagaalkii 3 si loo hadlayay yaa loo hadlayaa xoog baa loo hadlayaa waxa lagu hadlayaa luqad maartay dadka waa kicitaan baa jira dadka waa kicinaya waxa loo yeerayaa raggii muxalliliintii waaweyneedee la aamusiyey hadday islaamiyiin hadday qowmiyiin raggii baa loo yeerayaa waxaa loo yeerayaa maartay Saliim al-Awwal in dhahdo waxaa loo yeerayaa Camri Muusa loo yeerayaa oo maartay qowmi carbeeda kana waa islaami iyo loo yeerayaa raacadihii rasmiga ee dawladda hadda la leeyahay maraan waa jidana dadkuna jecel yihiin dhageystaan marka yaa la hadlayaa marka waxaas oo dhan waxa ku sheegtaa jazakallahu khayr shaqana dhanka kale markaan eegno isla Turkiga hadana wuxuu heshiis la galay
dowladda Sacuudiga kaasna muxuu ka jawaabay danta ku leeyahay maxay tahay okay horta Sacuudiga iyo Turkigu weligood waxay lahaan jireen heshiis askari ah oo taariikhi ah Sacuudiga waxa Turkigu iyo Sacuudigu waxay heshiis ku galeen waxa jira aqoonta la yiraahdo xaramka Makkiga iyo xaramka Madaniga ah ma gali karaan gaaladu haddii ay wax ka dhacaan ayaa gali kara dowladda islaamka bariga la sheegay waxa kamid ah Turkiga markii ay qabsadeen Jihan iyo beesha Faransiiska ka saaray laakiin waxa la soo xidhay dariiska Turkiga la soo xidhay laakiin ciidanka ka saaray Faransiiska hayaan ku takhasusay si loo difaaco qasriga Iliziga qasriga madaxtooyada ee Faransiiska hadday wax ka dhacaan qasriyadaas u dhisay xaramku dhisay marka hadday qabsadaan dad sidee looga difaaci karaa xataa waxaa jira hadday qabsadaan dad sita maaragtay hub jurthum sona ah hub maaragtay microbe ah hub maaragtay keenaya nuclear oo kale ah hadday sidee looga celin karaa sidee looga difaaci karaa marka raggaas la keenay Faransiiska hayaan gaar hayaan laakiin dadka muslimiinta bariga waxaa la tusay inay siteen dad muslimiin ay hayaan Turkiga looga dhigay marka Turkiga iyo Sacuudiga heshiis aan xoog badanayn baa jiri jiray xoog badanayn wuxuu ahaa difaaca xaramka laakiin imika kora loo yaqaaday waxaa laga sheekaystay afar shay inuu Sacuudigu iibsado oo bixiyay tanwiic maaragtay hubka hubkii Mareykan ku xidhnaa Mareykan galbeed Shiinaha uu ka soo qaadanaya masaadirta Ruushna uu ka soo qaadanaya Turkiga uu ka soo qaadanaya waliba Turkiga wuxuu ka soo qaadanaya diyaaradaha maaragtay droniska marka taasi waa lagu heshiis baa heshiiska labaad waxaa la galay الدفاع المشترك وحده السعودية هذه اللي صوروا تركيا ودفاعه تركيا هذه اللي ويرنا إنه السعودية بدالك قالوا تاسنا وشيس كاسنا وضعي أنا صدحنا ويكشكستن تركيا السعودي وحي كهذلين إسويدارسيغا أسرار تهبك مركز السعودي يقولوا بحي العق تركيا ونوصوا يهبك السعودي يقولوا نحسمايا هبك تركيا وشي تركيا السعودي إذا كانوا يقولوا نحسمايا Sacuudiga kala la baro Turkiyana lagu sameeyo hubka leel wali ayna sameeyay baarayaan lacagtana ay bixiyaan wadamada khaliijka ka mid yahay Sacuudiga yaana moogtahay Pakistan markii la sameeyay nuclearka Sacuudiga bixiyay iyo Libya ayga maalgeliyay mid kala mid ah boqor Faisal inay markaa soo noqoto kale taasina markaa yarka Maxamed Salman waxa uu keenay waxa weeyaan ولذلك محمد سلمان ما تجين سعودي ولي مريكا ميمن الشركه غربيه ما بين مريكا ولي بقاش وين با عبسوي ما هيك تمام نسا سو قابل يا مدحدا يا نعين مكي راه عندها سايري اردني حبيت سيسي يمو يعني رجل سيد بلد لو غلي marka waxay leeyihiin la wax iska bedelaya tagi meena meeshaas kaasina asaas kuma qanacsanada waata isbedel badan ayaa xagga bariga dhexe ka socda xagga kale hadii aad fiiriso dawladda Masar waxay ciidamo aad u fara badan dhoobaysa xuduudda u dhaxaysa iyada iyo Israa'iil gaar ahaan aaga Sinaa marka ma cabsina Israa'iil way ka muujisay aad u fara badan maxaa isbedelay hadda Masar oo heshiis taariikhi ah la lahayd Israa'iil in hadda ku sii dhaweeyay ciidamada dhanka Israa'iil arrinta weyn heshiisku wuxuu dhacay 1979 yani dhowr iyo 40 sano laga joogaa heshiiska waxa dhacdaa waa heshiiskii ugu horeeyay taariikhiga ee dhexmara Carab iyo Israa'iil Camp David laakiin waxa dhacdaa waa heshiiskii ugu horeeyay ee aanan meedhalin inka Masriga ma aaminsanaba inay Israa'iil iyo Masar heshiiyeen qofka Masriga ilaa hadda ma aaminsana arrintu waa arrintaas arrinta labaad waxa weeyaan ninka Masriga ah wuxuu aaminsan yahay ilaa Falastiin xoroobayso inayna Israa'iil ayna noqonin wadan dabiici ah noqonayso maadaama arrintu ay taagan tahay masaarida waxa ciidankayga bahdilay dowladda ninka cusub laakiin maca dalika dowladda العميقة maalin hore aniga kuu sheegay ninka Jamaal Hamdan mufakirka weynaa la dilay waxa la Israa'iil badjaan ninkaas wuxuu aaminsanaa in cadowga masaaridu uu yahay cadow ka imanaya dhinaca Gaza burburin doona
عقيدة عيدا كان لغو تغبر لها وطاوير العقيدة العسكرية السياسية للجيش المصري ايديولوجيا دي سوا طاوير غزة laga geli doono salaanta markuu soo bixinayo markuu dhiganayo ninka daabidka ee maaragtay askariga jaamacadda kulliyadda macaahidda askariga wuxuu maalin kasta ku dhaartaa inuu ilaaliyo maaragtay albawaaba sharqiya hadal masar loo ilaaliyo marka maxay bilowday marka imika masar oo ka qeydisiyay israa'iil masar waxay lahayd waa mansuucatu dasam masar waxaad gaadhsiiseen meel la yidhaahdo meel laga miiray subagii caanaha marka laga saaro maaragtay dufanka subaga marka laga saaro caano male waxaa iska cabi karoon qofkii buka qofkii cholesterol-adii waxba caba laakiin ciyaar kuma koraan marka masar waxaa laga dhigay baa la dhihi meeshaasoo kale la gaarsiiyey mansuucat alhayba haybad male mansuucat alquwa mansuucat alshakhsiya shakhsiyadeedii waa la burburiyey bilaadii waa la burburiyey saasaa la aaminsanaa laakiin waxaa la arkay inayna taasi ahayn 100% maxaa yeelay israa'iil waxay aaminsan tahay quwadda masar maaha ninka xukuma quwadda masar waa shakhsiyadda masar quwadda masari waa shakhsiyadda masar shakhsiyadda masarna waxaa xadida 3 shay waxaa xadida diinta taariikhda iyo juqraafiga هذا هو دراسة علمية اسمها بدليش دينته إسلامك من مالته ويبدي مهارة عمرو بن عاص له هذا كان مقضي إلا يماتا دينته مصاريح ومجتمع متدين ومجتمع حبات هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكل يقول ما شاء الله إلهي ما ومجتمع بالطبع ناتشرال با شيء ناتشرال إلهي هاي متدين ومجتمع أي سميست جغرافي وسميه هذه الجغرافيا بسميه هذه جيس أسميه مركا مجتمع نوع عاسة شخصيته عين كاسية ماها سياسي ماها سياسي عاوة لديه دوران قفك لا يمن كريها ولذلك سنة كي أبو سجوغي سنة أبو عين سرائيل باهي تاريخ ديدر عبد الناصر مساسو كالوا عبسون جرين وحا مركا إمكا عن سلاح نهي لدي شيء بأركين وحي أركين إن هب لقينيو سيناء waxaana lagu balansanaa Saynaa inay bilow baato heshiis ugu jirtay hadana wadan way jabiyeen masaaridu maxaa jabiyey iyagoo watiiqada jabiyeen hadii darfaxay soo fariistay marka waa la adkaysan kari waay waa la tagay arrin labaad bay arkeen oo ay dayax gamceedu sawireen nafaqyo la dhisayo huru hoose dhufaysyo ayaa dhisay ciidanka masaarida yaa dhisaya hub العروس oo lagu soo gurayo oo wali hubkii Mareykanka hubka China iyo Ruushka waxa laga keenaya midda ugu dambaysa waxa weeyaan dagaal hadduu dhaco waa 100 kilomitir Saynaa iyo Tel Aviv gacanta gaadis hadii ay masfaacun dhaqaaqaan gaari karaya hubka gaariya diiradaha gaarka gaariya ahwin ma marka waa beel khatar bay leedahay marka arrintaas bay aragtay arrinta waxay keentay inuu Netanyahu la hadlo madaxweyne Trump uu yiraahdo Masar la hadal oo jooji dhawaxan marka taas weeyaan la hadlaan malaynay والله hadlay Masar waxa anagu dagaal u socdaa sabab ka shaqeynaa bidhaa waata shaqada jazakallahu khair wali waxaan socnaa isbedelada iyo dhaqaaqa oo runtii keentay dagaalka Gaza uu keenay Pakistan iyo Sacuudiga waxay sameeyeen taxaaluf askari ama military alliance isbahaysi dhanka militariga ah oo waliba dhigahaya hadii dawlad kamid ah lagu la weeraro inay ka dhigan tahay inta kale la weeraray oo dagaalku sida galahayaan kaasina muxuu ka bedelahayaa balance of power ka ama dheelitirka awoodaha arrinta Pakistan iyo Sacuudigu waa noolayn heshiis maaha cusub waa heshiis la nooleeyay sii jiray boqor Faysal iyo Zia al-Haq هي إصلاح صحيحة وحلوة يقال الدفاع المشترك إذا ماذا باكستان وحلوة لغتها براء فأنا تعقرنا يا إذا ماذا باكستان وحلوة لغتها براء صدح شيء بالدفاع إلى القرآن باكستان الحرم عقيدة إذا باكستان صار لغتها براء القرآن باكستان الحرم marka Pakistan way garanayaan dawladkoogii quraanku waa kitaabkoogii waliba qofka marba jirtay uu diyaal xaq soo saaray
qofku hadduu xafido 10 juz oo quraana dabaadnimadiisa way ka saranaysaa meeshuu ka baxay ciidanka hadduu kaga soo baxay kuliyadda caskariga labaale saddex noqon hadduu quraanka 10 juz xafido xidig baa la siinaya xidig saa la siinaya marka quraanka lagu xidhi jiray ciidanka Pakistan waa ciidan caqadi ah waa ciidan diini ah ya waana ciidan loogu tababaray cadowga aad leedihiin waa Hindiya oo waxay nagu dhacdaana waa islaamnimo waxaana mas-uul ka tihiin qur-aanka difaaciisa waxaana mas-uul ka tihiin xarabka difaaciisa taasi waxay keentay in la jadiidiyo heshiiskii hore u jiray waxaa lagu daray 2 nuqdo nuqdo waxaa loo bixiyey weerarka marka lagu soo qaado ciidamada amarka ma qaadanayaan hoggaanka siyaasiga ah amar waxay ka qaadanayaan heshiiska generaalka ciidamada u taliya iyadoo waqti dhow khalado badan lagu dhacayo ahayd sacuudigu uu la heshiiyey Hindiya على حساب باكستان خالد خران dhacay انت وجوغي yarkeedi sacuudi wuxuu la heshiiyey Hindiya malaayiin awgeey باكستان ku cadaadinayay laakiin wuxuu ogaaday walaalkii inuu kaahin maxaa yeelay باكستان Hindiya waxay la saaxiibtahay kan kale saaxiib la saaxiibtahay maanta dib laakiin maanta xaqiiqada hore ma naysan ma tayaaradii saysan tayaar islaamiye sayar kare tayaar wadaada Salman Awde iyo Samar Hawali ay saystaan wuxuu haystaa inay cadowga islaamka markaa u tagtid in laga khafifinayo baash lagama khafifinayo barigii ilaa naxariistay Carafaad oo istiraafay Ismaaciil wuxuu joogay Aljazaa'ir wuxuu yidhi golihii dhexe la joogay xisbigiisa nactarifu waa xafidana ilaa imika nactarifu Israa'iil amsa goor Carafaad baa dhahay 3 jeer madaxweynihii markaa joogay Mareykanka wuxuu ku yidhi Ingiriis ku dhahay maxaa laga yidhi Ingiriis ku dhahay Ingiriis ku dhahay carabi ma naqaano waa laga keensi wuxuu yidhi nin saxafi ah Xasan Haykal hadduu saaray shabiishka shaarka suwaalka ka saarin nadee suwaalka qawlina ducaaban marka suuqi qahaa u daayay marka dadka ma fahmayaan yani maanta ninkii nactarif yidhi waxaa dhaxlay waayo waa Cabbaas maxay dhahdeen semeter shini ka dhado wasiirka maaliyadda muxuu taqaanaa haddaan ra'iisul wasaare noqdo buri 4 saacadood qofka ugu horeeya soo xidhay waa Cabbaas ما يجعلها هو بدأ يبرع عباس يا عباس حماس السين بهذا رمضان هذا اسكت انا اكتب اسكت اوكي تاس اوغادي من السعوديه marka taas keentay in la dhacdo ciidamadu amarka ma qaadanayaan siyaasiyiinta waxay ka qaadanayaan heshiiska wax qoran arinta labaad ee soo beertay waxa weeyaan wuxuu yiri ciidanka Sacuudiga waxa xukumi doona markay dhibaato dhacdo يا السعودية حكومي دورة هذا دبعت العضو جنرال كعيدك بصرية عيدك مسار عيدك واحد باكستان عيدك باكستان واحد حكومة دبعت العضو جنرال كعيدك السعودية وكلمة وصل الوضع في قدم ايش قرتوا اسال بلاده marka aad buu kula baashay heshiiskani waa heshiis maxay noqon doonaan awraaq bay noqon doonaan mise xaqiiqi noqon doonaan taariikhda ka hori doonta insha Allah waa tahay waliba iyadoo xisaabta lagu daray Pakistan waa wadanka kaliya muslimka ee nuclear power oo maarka wax badan difaaci karaya waa tahay shaqi waxa badan ayaanu taabanay Masar oo ciidamo xagga u sii wada Masar iyo Turkiga Sacuudiga iyo Turkiga isku dhiwaanay iyo Sacuudiga Pakistan shisa galay bariga dhexe meel baa loo wadaa xaq u socda اوكي السؤال مهم حاجه دراسه aan ku hayo waxay sheegaysaa waxay leeyihiin dagaalkii dhaxmaray Iran iyo Israa'iil buu dhamaaday soo shaqaystii wuxuu leeyahay daraasadu waxay leedahay waxa hadlay ciidanka Israa'iil ninka xukuma wuxuu yiri bishii dhaweyd August iyo hadlay wuxuu yiri dagaalku wuxuu ahaa marxaladii koobaad ee shaqada marka maxaa hadhay labaad baxti wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araqchi wuxuu yiri hadduu soo laama mar labaad weerar lagu soo qaado Iran oo filayn inuu dhacayo Allah maxaalata wuxuu yiri waxay jawaabtu noqon doontaa mid kulul
si aan weli loo aragnaa bariga dhex looga dareemi doono. wuxuu meel kale ku yidhi nin kale oo xaraska xaqano wuxuu yidhi warar badan baa sheegaya inuu dagaal dhici doono, annagu ma odhan u dhacaya mana dhacayo, laakiin waxaan inii sheegaynaa in aan samaynay 3 bandhigis dagaal. waxaa loo bixiyey mid quwadda waarta, 2 cishay socotay 20 iyo 22 bisha August. mid kale waxaa loo bixiyey qarqaata, xagga diyaarada waxay ahayd xagga doonyaha diyaarada gantaalada tuura. mid saddexaadna waxay ka dhacday gudaha badaha waaweyn ee adduunka. markaas wuxuu yidhi waxa aan dhammaynay inaan diyaar u nahay dagaal Iiraan laga guulaysan. xagga xabaddaas qabso hadal culus. mid labaad Turkiga wuxuu furay meelihii dhufaysyadii dagaalkii labaad ee adduunka kadib la xidhay oo la furay. 2 wuxuu amray in la dhiso nafaqyo. 3 waxaa la amray in la dhiso meelo dadka 10% ilaa 15% dadka Turkiga ay gali karaan hadduu dhaco culus nuclear ay ku baadi karaan. amar baa la bixiyey, qarashkiina waa la diyaariyey. Dargaro bay ku jiraan. waxay aaminsan yihiin ciidamada Turkidu, madaxdoodu waxay aaminsan yihiin in ay suurtagal tahay inay Israa'iil qabsato Suuriya, markaana qasab noqonayso dowladda Turkiga inay Suuriya difaacdo. halkaana ay noqon doonto meesha ugu horeysa isku dhici doonaan labada wadan. diyaaru maaha inay dagaal gasho, laakiin waxay diyaar u tahay inay difaacdo Suuriya oo ka dhigan dhul difaaca ka mid ah Turkiga. okay taaga dhigo saddexaad. ciidamada Urdun waxay dareemeen dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo ciidamada Israa'iil ay xuduudda ka wadaan iyo tababaro cusub oo lagu qaadanayo xuduudda, taas oo keentay dowladda Urdun inay aragto inay halis ku jirto. taasina waa saddexaad. waa gartay. saddex ma joogno. okay dowladda Chinaha waxaa hadashay wasaaradda difaaca ee Chinaha. waxay tiri ciidamada Shiinuhu waxay diyaar u yihiin inay nabad ka keenaan badaha dunida oo dhan. taasoo ka dhigan inuu Shiinuhu ka baxay arrintii kumuuka ee uu ahaa dowlad dhista u dhaqaalaha uu u baxayo position bay qaadanayaan oo geopolitics ah oo ah ciidamada. taasoo ka dambaysay bandhigii ciidamo ee dhacday 2 usbuuc ka hor. ay ka soo qayb galeen dowlado waaweyn oo ay ka mid tahay Ruushka, Hindiya, Iiraan, Brazil, oo lagu soo bandhigay qaybta labaad ee dagaalka qabow ee bilaami doona. dagaalka qabow bilaami khalaas. waxaa la leeyahay maalintaas waxaa bilaamay dagaalkii qabowga. maalinta taxalufaysi baa bilowday. dagaalka qabowga ayaa bilaamay. wuxuuna yidhi Trump waad mahadsantihiin, khayr baan idin rajaynayaa. uu gartay. waata keentay wadana carbeedii inay u dhaqdhaqaaqaan, lianna marka ay bilaamato dagaalka qaboobi waxaa la helayaa meelay ku ciyaaraan wadanada yaryar. wadanada yar meelay ku ciyaaraan ayaa la helayaa. ayaa la kala jiidanayaa. marka bariga dhex buu socdaa. bariga dhex waxaan ka filaynaa 2 arrimood oo waaweyn. kow, in uu dhaco dagaal ulul badan wata oo keensan doona inay Turkiga iyo Masar iyo Suuriya iyo Israa'iil isku dhacaan iyo Iiraan. taasi waa filitaan. waa mid weeyaan. maya in waxba dhici waayaan oo arrintu ay ku joogsato Gaza, laakiin arrinta Gaza ka bilaabatay gilgilka ay keentay waxay abuuraysaa weji labaad oo bariga dhex yeesho. wuxuu noqonayaa marka wejiga labaad ee ayna dagaal ku jirin. wuxuu noqonayaa weji ah in aynan arrinta Gaza
ayna ka suurtagelin waxa Israa'iil doonaysay. kow tahjiirkii ma suurtagalayo. labo inaad difada la furfuro ma suurtagalayo. saddex Israa'iil kubra ma suurtagalayso. laakiin afarta waxaa dhici karaysa in dagaal gudaha Israa'iil ka bilaabo. dagaalka gudaha Israa'iil ka bilaabo wuxuu noqon doonaa dagaal dhex mari doona saddex qolo. midigta diiniga iyo bidca bila diiniga. waa qolo. qolada labaad uu dhex mari doona waxa weeyaan dadka nabadda doonaya iyo kuwa dagaalka doonaya. qolo saddex dhex maray oo maxay? waa dadka cuqalada ah ee la badbaadiya Israa'iil iyo kuwa la Israa'iil maanta fursad haysta ay ka gaarsiino. marka iyaga dhexdooda ay dhacayaan. walidaalika waxaa la leeyahay waqti dhow waxaa isku dhacaya siyaasiyiinta Israa'iil ee gudaha. taasina waxaa dhow noqon doontaa Gaza. marka arrimahaas baa la filayaa. bariga inay dhacaan baa suurtagal ah.